munaasabad ballaaran oo maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho waxay ahayd soo dhaweyn guusha xildhibaannimo ee xildhibaanada kala ah Maxamed Abuukar Jacfar oo ku soo baxay hoob 25 iyo Dayax Axmed Cumar oo ku soo baxay hoob 61 doorashooyinkii dhawaan ka dhacay magaalada Dhuusamareeb waxgaradka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada oo ay qayb ka ahaayeen dhaqanka beesha Habar Maxamed oo kamid ah beelaha Mursade ayaa ka qayb galay munaasabadan oo ay ku soo dhaweeyeen xildhibaanadan ku matala baarlamaanka cusub ee 12aad waxaa loo riyaaqay waliba naasi weyn loo taageeray guushooda xildhibaannimo iyadoo xubnihii ka qayb galay kulankan ay muujiyeen qanacsanaanta matalaadooda ee xildhibaanadan kala ah Dayax Axmed Cumar iyo Maxamed Abuukar Jacfar oo hadda baarlamaanka ku matalaya bulshadooda qaar kamid ah dhaqanka iyo xubnihii kale ee ka hadlay madasha munaasabadan soo dhaweynta ayaa codkooda ku biiriyay taageerada xildhibaanada cusub Jacfar iyo Dayax tashi fiican waa ismaati fiican marka waxaan rajaynayaa arintaas in maanta noogu bilaabato in noogu dhamaato kulli dadkan waa badan yahay waqtiguna waa dheer yahay mar raba inaan waqti dheer aan warka sii badiyo waxaan leeyahay mar labaad soo dhawaada idinkuna waaga cusub idin bariyay inaad garab siisaan Allah idinku duwo Habar Maxamed waa joogi jirtay subna imaajirin waxaan leeyahay marka labada xildhibaan ee cusub ee hadda isu keentay waxaan ka rabnaa wixii wanaaga ee madaynta Habar Maxamed ah laga bilaabo maanta ugu dambeyn ayaga mas'uulka ah waxaan rabnaa marka waa aragnay kali waxay noqoto waa aragnay inay wax tari weyso waa aragnay xumaanteedaan soo marnay waxaan rabnaa marka wanaaga iyo wadajirka Habar Maxamed iyo madaynta Habar Maxamed qof kasta ee inta fadhida iyo inta maqan ayaa xil ka saaran labada wiilo dhedhelhoon adeerka oo meesha jooga waxaan leeyahay maanta fara wiilashaydiyo waayada dhaweed meeshan madaxtooyada dabaylaha ilaaho xaliso dadka laayaan naga soo gaaray waana la laaya waana nala dhacaa doqonnimo idinkuma ogeyn wiilka yar oo la yiraahdo Dayax isagu waa yar yahay laakiin raad fiican iyo meel raganimo ka jirtaan ku ka soo jeedaa Jacfarna waa xaniya cad banaanka u yaalaahay inta maanta wixii ka dambeeya burcada meesha ka jirtana naga celiya ilaahay dartiis ina wada dhan noogu hiiliya dadku waxay dhaanima wuxuu ilaahay waxana waa jira waxna waa yeel jireen xildhibaanada soo dhaweyntooda annaga waxna waa noola jireen waxaa noola jiray xildhibaanadana in la soo dhaweeyo Habar Maxamedna waayaan waa kala maqnaade bal inay is salaanto intii is heli karto oo la soo heli karo bal maanta inay is salaanto xoogaa haddii maaragtay ay iswaraysan karta iswaraystaan arxaal la soo maraysaa wax u yaalaan in la yiraahdo intaasaa noola jirtay soo dhaweynta xildhibaanada tooda labada xildhibaan oo walaalaheeya aan adeeradooda ahay adeer baan ahay walaalumeeyay waxaan kula taliyaa dadkaana iyo dadkay dhaleel iyo dadka ka sii dambeeyay adinku inisuga waxa deeqa dadka waxa deeqa cadaalad ilaahay baan ku dhaartay hadaa cadaalad ku fashiin adduunyo aakhira waa liibaanaysa hadaa cadaalad ugu shaqaysiin waa xaqiiq oo dad iskhilaafina xildhibaano horta waxaa tiin sharci dejiyaal qaran waxaa tiin kormeerayaal korjoogteeyayaal howlaha hay'adaha dawladdu ay qabtaan laakiin si gaar ah waxa u tihiin u adeegayaal bulsho khaasatan maadaama aysan jirin nidaamkii qaranka uu bulsan yahay adeegayaasha dadka adeegayaan waa dadkan maanta halka isugu yeerteen marka waxaan leeyahay xil gaar ah idinka saaran inay xuquuqdooda raadisaan taas midaasaan leeyahay waxaan kaloo leeyahay labada xildhibaan midnimadooda si wanaagsan looga hadlay laakiin anigu waxaan rabaa inaan ku darsado mas'ala yariisa oo ah bariiska waxa la marka la karina biyo badan u baahan yahay laakiin hadda digsi bariis inta ku soo shubtid biyaha badda dushiisa asaar dushooda saartid ma karsamaayo hadana mees maxaa ka maqan dabkiya ka maqan marka biyo badda tirada badnaa iyadan dabkii la bariisku ma karsamaayo horta ogaada haddaad gacmaha isqabso weysaan oo isla shaqay weysaan 2013 meeshii lagu kala tagaa xildhibaan Maxamed Abuukar Jacfar oo kamid ah xildhibaanadii maanta loo sameeyay munaasabadan ayaa waxa uu la hadlay ka qayb galayaasha munaasabadan taageerada ahayd waxaana uu amaanay doorka bulshada ay ku matalayaan baarlamaanka Soomaaliya annagu maadaama aan hadda xildhibaanadii aan noqonay beesha birina kulli rag kala noqon doona shalana rag kala ahay inta annagu aan joogna mas'uuliyaduna saaran tahay wixii aan qaba karno
oo tolka dhexdiisa inaan qabanno haddii aan doqomo noqonan wiilashidoo doqomo noqdaan nahay waa nugu qaadan doontiin laakiin waa dadaalaynaa insha allahu taladu maanta inta isugu timiday in hoolkan yar ma aha Habar Maxamed madaxdeedii waa wada maqan tahay mas'uuliyiintu waa maqan tahay ganacsato waa maqan tahay laakiin in dooraha joogta maantay waxaan rabnaa gogol kuwan koowina isugu imaanaynaa aan ku wada hadli doonaa wax badan ku falanqayn doonaa meeshu dhibku naga soo gaaray ama meeshu hadda wax laga toosi kara intaba maanta laakiin farxadeenu waa in horta usu nimaado xildhibaan Dayax Axmed Cumar oo kamid ah xildhibaanada cusub ee baarlamaanka 11aad golaha shacabka oo dhawaan lagu soo doortay magaalada Dhuusamareeb maantana munaasabadan lagu sameeyay magaalada Muqdisho ayaa waxa uu soo xiray munaasabadan maanta loo sameeyay isaga iyo xildhibaan Jacfar waxaana khudbadu ka jeediyay madasha uu ku soo dhaweeyay taageerada maanta loo muujiyay ani xildhibaanka cusub waxaan shaqo doonaa isku xirka iyo midnimada Habar Maxamed haduu Ilaahay raayo anigu Jacfar wax badan ka bedelno dadkii la tartamay meesha fadhiyo si gooni ah u salaamo oo anu tartankiina soo dhamaaday oo sidii qabiilka lagu hormarin lahaa iyo aan ka wada shaqeyno qof walba oo kursi raadinaya policy iyo sharciyada ugu dirsanada kursiga ku maamulo 4 sano annaguna waxay naga anfaco talooyinkooda ka qaadano horumarka qabiilkana aan si guud aan wada shaqeyno